dood iyo shaki la'aan gerigu waa xayawaanka ugu dheer xayawaanada ku sugan beriga. lugihiisa iyo qoortiisa aadka u dheer ayaana geliyeen kaalintan. marka la eegana boqortooyada xayawaanada wuxuu ka mid yahay qoyska Giraffadae, waxaana xusid mudan inuu yahay xayawaan Afrikaan ah. asal ahaan waxaa la sheegaa inuu hal nooc yahay, laakiin sidoo kale waxaa la xusaa inay jiraan 9 noocyo hoosaadyo ah. cilmi ahaan magaca loo yaqaano waa Giraffa camelopardalis, waxaana camelopardalis loola jeedaa xayawaankii geelka iyo shabeelka isku ahaa, maadaama joogga uu ka shabaho geela. marka la eego midabka jirkiisuna waa mid tuutaysan oo shabaha midabka xayawaanka shabeelka. dalal badan oo Afrika dhaca ayuu ku badan yahay, waxaana haatan laga helaa laga soo bilaabo dalka Chad ilaa laga gaaro koonfurta Afrika iyo Niger oo galbeed ah ilaa laga soo gaaro Soomaaliya. wuxuuna gerigu aad ugu badnaa gobolada Jubbooyinka, weliba gobolka Dooxooyinka iyo kaymaha badan ee Jubbada Dhexe. wuxuuna badanaa jecel yahay dhulka leh geedaha dhaadheer si uu u helo cunto. wuxuuna cunaa caleemaha, miraha iyo ubaxyada geedaha dhaadheer. wuxuuna adeegsadaa carabkiisa dheer ee gaaraya 18 ilaa 20 inji. geriga ayaana ah xayawaanka awooda inuu carabkiisa ku nadiifiyo dhagihiisa. carabkiisa ayaana ah mid madow, inkastoo la arko kuwa carabkoodu buluug ama gaduud yahay. geriga waxaa lagu yaqaanaa isla socodka sida guutada ah, waxayna gaaraan 50 geri marka ay isla socdaan. laakiin marka ay hal meel u wada jihaystaan, qaar ka mid ah kuwa lab ee qaangaarka ah waxay sameeyaan dagaal u caado ah ayagoo qoorta isku duuduuba. dagaalkan ayaana ah tartan loo galayo midda dhadig, waxaana midda dhadig lahaada midkii dagaalka ku guuleystaa. inkastoo la sheego sababo kale oo dagaalkan ku saabsan, balse waxaa xaqiiq ah in gerigu awoodo inuu ka takhaluso libaax qaangaar ah, maadaama darbada lugihiisa ay aad u xooggan tahay. gerigu wuxuu uur lahaadaa uu caloosha ku sidaa cunugiisa 14 ilaa 15 bilood. cunuga marka uu dhashana dhirirkiisu wuxuu gaaraa 2 mitir. marka ay dhalayso waa mid aan fadhiisan oo taagnaata 20 daqiiqo. marka ay cunuga dhasho oo uu dhulka ku dhacana, saacad kadib ayuu istaagaa, asigoona 24 saac kadib raaca hooyadiisa istaaga ku dhashay. cunuga yar ee dhashayna toddobaadka ugu horeeya maalin walba waxaa ku kordhaya 3 sentimitir oo dhirir ah, waxaana suurtagal ah in dhirirkiisu 2 jibaarmo sanadkiisa ugu horeeya. marka aan eegno geriga waxaa inoo muuqanaysa qoortiisa dheer, maadaama ay gaarayso 1.8 mitir, laakiin asigu waa ay ku gaaban tahay, weliba marka uu doonayo inuu afka ku soo qaato waxyaabaha dhulka yaala. tusaale, marka uu rabo inuu cabo biyaha dhulka jiifa, si toosa uma cabi karo, wuxuuna ku qasban yahay inuu kala fogeeyo lugihiisa dhaadheer. wuxuuna ka mid yahay xayawaanada naasleyda la isku yiraahdo, waana mid caba biyo aad u badan, wuxuuna biyo la'aan joogi karaa in ka badan inta uu joogi karo geelka. wuxuuna jari karaa gerigu asigoo aan daalayn badan 10 meel maadaama talaabadiisu dheer tahay. dhanka kale labadiisa lugood ee hore 10% ayay ka dheer yihiin kuwa dambe, taasoo ka dhigtay geriga mid leh qayb hore oo dheer iyo qayb dambe oo gaaban. midda dhadig ee kortay dhirirkeedu waa 4.3 mitir, culeyskeeduna waa 680 kilogaram, halka midka lab ee koray uu dhirirkiisu gaarayo 5.5 mitir, halka culeyskiisuna yahay 1360 kilogaram. geriga ugu dheer ee galay buugga Guinness World Records ayaa ah mid loo bixiyay George, kaasoo laga helay Kenya, wuxuuna dhirirkiisu gaaray 5.7 mitir. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in gerigu seexan, laakiin taasi sax ma ahan. inta uu hurdo gerigu aad ayay u yar tahay, wuxuuna celcelis ahaan maalintii jiiftaa 2 saacadood, halkii marna wuxuu jiiftaa 10 daqiiqo oo qura. cadaadiska dhiiggiisuna waa mid daciif ah. marka laga yimaado xayawaanada sida libaaxa, bani aadamka ayaa ah kuwa ugu badan ee ugaarsada, wuxuuna gerigu ka dabar go'ay dalal badan oo Afrika dhaca. kuwa yaryar 50% waxaa ugaarsadaan oo ku waliimaystaan xayawaanada waaweyn ee duurjoogta ah ee hilibka cuna. guud ahaanna wuxuu cimrigoodu gaaraa 25 ilaa 30 sano.